qisada koowaad haddayna soo qaadano waxay ku saabsan tahay dhakhtarka caanka ah ee Faransiiska ah ee la yaqaano Maurice Bucaille. Maurice Bucaille waa dhakhtar Faransiis ah, waa dhakhaatiirta ugu caansan xagga qalliinka. waxaa dhacay 1981 ayaa dawladda Faransiisku waxay ka dalbatay dalka Masar inay runtii u keenaan qalfoofkii Fircoon Ilaahay sheegay subxaanahu wa ta'aala inuu qarqiyay qalfoofkiisii inay u keenaan si ay ugu sameeyaan baaritaan cilmiyeed oo ay bal u ogaadaan qalfoofkaas iyo waxa uu ku sugan yahay iyo sida u dhintayba. markii dawladda Masar ay u gudbisay qalfoofkii Fircoon dalka Faransiiska ayaa waxa qalfoofkaas ama meydka lagu soo dhaweeyay si aad u qiimo badan. madaarka ayaana lagu qaabilay. markii la soo dhaweeyay ka bacdi ayaa waxa loo gudbiyay meeshii loogu talagalay in research-ka lagu sameeyo ee lagu baaro. waxa isu tagay aqoon-yahanadii ku takhasusay baaritaanka qalfoofka loogu talagalay iyo raggii dhakhaatiirta aadka ugu caansanaa waqtigaas. dhakhaatiirtaasi runtii hawsha fulinayay waxa gudoomiye u ahaa Maurice Bucaille oo ah runtii dhakhtar ku caan ah qalliinka dalka Faransiiska. waxa dhacay waxa la bilaaway hawshii in la baaro dhammaan arrimaha khuseeya qalfoofkan Fircoon. markii la baaray ayaa waxa dhacay Maurice Bucaille oo runtii dhakhtar ahaa isagoo aad u daneynay inuu ogaado maxaa dilay ama sideeba u dhintay ama maxaa sabab u ahaa inuu dhinto Fircoon. baaritaankiisa isagoo wada ayaa waxa dhacay habeennimadii waqti aad u dambeeya ayaa waxa uu ogaaday xaqiiqada uu ku dhintay Fircoon uu ku dhintay ama sababtu u dhintay waqtigaas uu ogaaday. oo sidoo uu ogaaday wuxuu baaritaan ku sameeyay qalfoofkii Fircoon. wuxuu ogaaday Fircoon cidiyihiisa hoose inay ku jiraan milixdii badda waxyaalo kamid inay ku jiraan buu arkay. markuu mikroskoobkii ku eegay oo baaritaanka ku sameeyay ayuu wuxuu ogaaday in waxyaalo kamid milixdii baddu inay ku jiraan faraha Fircoon. kadib wuxuu ogaaday maadaama milixdii baddu ay ku jirto faraha iyo cidiyaha Fircoon wuxuu ogaaday sababtu u dhintay inay ahayd inuu ku qarqoomay badda. Maurice Bucaille markuu ogaaday xaqiiqada ah inuu Fircoon ku dhintay qaraq waxa uu sheegay ragii la fadhiyay mid kamid ah. waxaan ku yiri waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in Fircoon uu ku dhintay isagoo qarqoomay oo ku dhintay oo badda oo ku dhintay. ninkii la fadhiyay baa waxa uu ku yiri arinta la baadhayay arinta ku degdegin sababtu waxay tahay muslimiintu waxay sheegtaan inuu Fircoon uu ku dhintay isagoo qarqoomay inuu dhintay oo waxay raan quraanka ayaga sheegay. Maurice Bucaille wuxuu uga jawaabay arintaasi suurtagal ma aha. sababtu waxay tahay buu yiri qalabkan aan wax ku baadhanay arintan aan ku ogaanay waxa la sameeyay oo waxa laga joogaa waqtigii la sameeyay 200 sano. muslimiintuna kitaabkoodu wuxuu soo degay 1400 ka hor buu soo degay. marka suurtagal ma aha muslimiintu qalabkan aanu haysano ee casriga ah waqtiga inay heyseen suurtagal ma aha. qalabkana imku ma la helay waqtigaas muu jirin. marka suurtagal ma xaqiiqadahan aqoonta ku ogaaday aan baaritaanka ku ogaaday in muslimiintu ogaayeen ama quraankoodu uu sheegay 1400 sano ka hor inuu sheegay suurtagal ma aha. arintii isagoo aad u la yaaban Maurice Bucaille baaritaan buu sii sameeyay. injiil iyo tawraad ba uu baaray wuxuu ogaaday wax badan inaanay ka sheegin arinta oo ay ka aamuseen kaliya ay sheegeen inuu Fircoon uu dhintay laakiin sababtu u dhintay iyo qaabku u dhintay kama sheekeen. waxa dhacay muddo ka bacdi ayaa safar wuxuu ugu baxay Maurice Bucaille dhakhtarkaasi Faransiiska ay wuxuu safar ugu baxay dalka Sacuudiga isagoo ka qayb galay shir caalami ah oo lagu talagalay dhakhaatiirta arrimaha dhakhtarnimada iyo caafimaadka wixii ku takhasusa la xiriira in runtii lagu soo bandhigo wixii research laga sameeyay. shirkaasi markuu ka qayb galay ayaa Maurice Bucaille shirka waxa uu ka sheegay baaritaankii iyo aqoontii uu ogaaday. wuxuu ka sheegay inuu ogaaday oo discovery uu ku sameeyay inuu Fircoon ku dhintay qaraq inuu ku dhintay inuu badda ku dhintay. arinta inuu ogaado baaritaan uu ku ogaaday ayuu u sheegay dadkii shirka fadhiyay.
kadibna nin dadkii shirka ka qayb galay kamid ahaa ayaa waxa uu ku yiri quraanka ayaa arinta sheegaya aayadiiba u soo qabtay sheegaysay aayad ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sheegay inuu fircoon uu qaraq ku dhintay ayuu soo qabtay ee ahayd al-yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka aaya wa inna kathiran min an-nas an ayatina laghafilun aayada ma ku akhriyay ee uu turjumay uu xamil kari waay aad bay arinta la yaab ugu noqotay aad bay culays ugu noqotay isagoo aad u la yaaban ayuu markiiba yiri aamantu bi hada al-qur'an quraankaas waa rumeeyay diintan waa rumeeyay waana xaq weeyaan halkii ayuu Maurice Bucaille oo aha dhaqaatirtii ugu caansanaa dalka Faransiiska qalliinka uu ku islaamay isagoo markii dambana buug qoray aad u cajiib badan wallahi raahdo islaamka iyo tawraad iyo injiil oo la barbar dhigaya cilmiga buug noocaas ayuu qoray buugiisu wuxuu noqday buug aad u caalamiya oo intaas oo luqad loo turjumo buugiisa caalamka dhan ku faafay wuxuu isbarbar dhigayaa islaamka iyo muxuu ahaayay in Christianity-ga iyo Yahuudda iyo diimahooda mid kastaaba wuxuu ka leeyahay aqoonta iyo cilmiga maxay science-ka waxa uu ka leeyahay waxa uu soo saarayaa cilmiga science-ka ee saxda ah ee la xaqiijiyay iyo islaamku inay iswaafaqsan yihiin ayuu ku soo saaraya research-kiisa ama buugiisaas uu ku sheegaya waxaanu aad ugu sheegaya oo ku tilmaamaya sida uu la yaabay quraankii soo degay 1400 sano ka hor inuu maanta uu sheegayo runtii researchada aqoonta la gaaray casriga ah halkiisa ugu dambeysay inuu quraanku tilmaamayo arintaas aad u tilmaamaya marka runtii sidaas ayuu markaa ku islaamay Maurice Bucaille